Waa qiso cajiib ah oo ciwaankeedu yahay Saaxiibtay waxaa dhalay aabbahay. Haddaba saaxiibayaal, halkani waa qiso iyo qalin. Waxaan ku soo gudbiyaa sheekooyinka, xigmadaha, taariikhaha iyo waxyaabo badan ood ka faa'iidi doontaan. Haddaba muuqaalka lee gareeya, channelkana subscribe noo dhaha si aan meel fiican u gaarno. Aan galno muuqaalkeena. Markaan dugsiga dhexe soo gaaray, ayaan waxaan u guurnay magaalada Muqdisho. Waxaan galay iskuulada magaalada, iskuul ka mid ah. Waxaan bilaabay galaaska shanaad ee dugsiga dhexe. Waxaan isbarannay gabar ila fadhiday oo qiyaastii da'deedu ay ahayd da'deyda oo kale. Barasho kadib, gabadhii waxaan noqonnay saaxiibo. Inkastoo laba degmo oo aad u kala fog aan degganayn, haddana iskuulka markaan iskugu nimaanno, waxaan ahayn kuwo isku faraxsan mar walba. Ardaydu waxay dhihi jireen, indhaha iyo afka ayaad iskaga eg tihiin. Magacyada aabbihiinna waa isku mid. Ma walaalo ayaad tihiin. Laakiin annaga waxaas wax weyn uma arki jirin. Oo dadku way isku magac ekaan karaan. Waxaan soo gaarnay dugsiga sare. Sidii iyo si ka wanaagsan ayaan saaxiibo u ahayn. Muqdisho intaanan soo degin ka hor ayuu dhintay aabe. Marka gabadha waan ogaa in aabaheed dhintay iyadana. Laakiin Soomaalida dhan baa agoon iska ah oo wax weyn uma arki jirin. Waxaan sidii ahaano waan dhammeeyey iskuulkii. Kadib ayaan doorannay hal jaamacad inaan isla galno. Waan isku raacnay hal kulliyad ayaan doorannay. Maalin maalmaha ka mid ah ayay igu adkaysay inay xaafadeeda u raaco, maadaama aanan weligay tegin xaafadeeda si ay ii barto reerkooda. Waa ka aqbalay. Jimcada ayay i ballamisay. Waan aaday gurigooda. Markaan galay ayaa daaradda waxaa fadhiyay hooyadeed iyo habaryarteed. Waxaan dareemay in si aad iyo aad ah ay ii eegayaan. Markaan soo fadhiistay ee cabbaar fadhiyey ayay hooyadeed tiri, "Eedo, aabbaha magacii." Waan u sheegay. "Maxaa loogu daraa?" ayay tiri. "Ilaa awowga saddexaad ayaan u geeyey." Kadib ayay i weydiisay qabiilkayga. Waan u sheegay. Hooyaday magaceeda ayay ii sheegtay. "Heblaayo miyaa ku dhashay?" ayay tiri. "Haa." Intaan qoslay ayaan idhi, "Saaxiibtay miyaa kuu sheegtay? Sidee ku ogaatay?" Islaantii way istaagtay, wayna fadhiisatay ilaa 3 jeer. Markaasay gabadheeda ku tiri, "Gabadhan waa walaashaa." Waan is eegnay. Intaan yaabnay. "Laakiin sidee eedo?" ayaan idhi. Markaas ayay waxay tiri, "Aabbaha ayaa qarsoodi ii qabay, iyadoo hooyada laga qarinayo." Markii dambena waan kala tagnay. Saaxiibta markaan dhalay kadib, oo saaxiibta waad isla eg tihiin, isku waqti ayaad dhalateen. Kadibna waxaan maqlay geeridiisa oo ma soo raadin. Adeerkaa xitaa waad weydii kartaa oo markhaati ayuu ka ahaa guurkeenna. Xaafadda ayaan imid anigoo hadalka uu igu dheggan yahay. Hooyaday ayaan wax walba u sheegay. Way xanaaqday oo aabbe xitaa oo dhintay way cayday. Kadib ayaa la yidhi, "Isdeji." Markii arrinkii la soo ogaaday, waxay tiri, "Igee xaafaddooda." Waan kaxeeyey. Xaafaddii ayaan geeyey. Laakiin waxaan islahaa waxay u socotaa wada hadal iyo inay su'aalo weydiiso. Laakiin islaantii ayay baangad la dhacday ay hoosta ku wadatay. Dagaal iyo dhibaato kadib, tolkii ayaa soo kala dhex galay. Saaxiibtay iyo anigana waan kala go'nay. Oo saaxiibtay waxay iska dhaadhicisay iyada iyo hooyadeed inaan duulaan ku ahayn. Xitaa aabbaheen oo dhintay ayay cayday. Waxay ii qaaday nacayb daran. Jaamacaddii way ka baxday aniga sababtay. Sidii ayaan ku kala harnay. Dhowr jeer ayaan suuqa isku aragnay. Markaan damcay inaan la hadlo, waxay tiri, "Haddaad iga hari weydo, rubac qaad ah ayaan madaxaada dul dhigayaa." Sidii ayaan ku kala harnay aniga iyo saaxiibtay. Haddaba anigu maxaan dambi ah oo leeyahay?